إنا لله وإنا إليه راجعون. ninkaasi waxaa la yiraahdaa Qasmus ama Rasmus Breton wuxuu gubayaa kitaabka Qur'aanka dhan buu gubayaa waxaana askar oo dhan isaga ilaalinaya wadanka dhan baa loo xiray fiir kitaabka Qur'aanka gubayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun سبحان الله وهل من وحاسس كرنا نسوي لنا وحب عورتها غفير وحاسس لو اسكرت وضع كذا هل كان نبي لنا غير الكتاب يقبي وكل جيس سبحان الله سبحان الله حتى dadkii wadanka u dhashay baa diidaya ka hor dagaalamaya dadkaas way diidan yihiin cadaankii waa iska soo horjeeda naftooda غير قبضاسي وحلا دغالس كسر جدا waxa cajiib ah oo lala yaaban yahay askarti dhan baa ilaalinaysa oo ku wareegsan kitaabka uu gubaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cadaabta geeyo subxaan allah waa hal nin bes waaye wax kaatama waa hal nin cid kaatama meeshan waa Copenhagen ama Denmark ayaan soo gaaray ama Yaman joogay marka waa wadan asaga dhan u samaysan cusurnimada iyo qoronka iyo cayda laakiin ilaahay maadiis halkaas waxa ka arkaysaa dadkii qaarkood cadaankii naftigiisa ka soo horjeeda askarta feer Allah fadlan oo shaytaan dhalinyaradan ayagana muslimiintan waa ninka inay weeraraan bay rabaan laakiin waxaa cajiib ah fiiri waxaa askara fiiri waxaa askara afarta geesi ka taagan yihiin mas-uuliyadda ka jirta dhulka gaalada saacad قالك حنكو نعم شعب كحلين عم كحلين وحلين وما باهنين عنصريات وما باهنين يعني خصيصة عنصريين وما باهنين وهل كان نبسوي هذا كتاب كوا قبي وكذا ماضي مسلمين قالوا waxa badan gaalada xadiis Islaamka dhan way yar yihiin
خير كتاب يقول وهل كان انقص لك إلهي أديك وكل جديد وأنا مسلمين تسير لهم كتابك سلاي إلى عليه أما هل الجبل ما يال الجبل ولا في الدسين هاي مسك هذا فرد لها هي كتاب القرآن كي يجيبه نعلى شهادات إلهي ذكر شفاء مسلمين